شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab. haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaana ku soo maraan iyana imtixaan kale un inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab. idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba. nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay. ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen. isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray. isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya uu soo maray. waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray. ay imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma. ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa. maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray. dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen. abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beeraale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaaf. haddii adeerkaa ku daba galo bal adgu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yar annagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo. yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaaska kaa taago. ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u soo dejiyey oo qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin. cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado. alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamaya alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego. nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreeno markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil. salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenna un inaan maanta ka hadallo altasbiix faqad. tasbiixu erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaana allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culammada soomaaliya. ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can innaqaa'is. waa ilaahay subxaana wa tacala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday. waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama. alxamdu lilaahi baa markaa ah ilaahay oad kamaalka u sugayso. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisiyo ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk. waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar waacrid can almushrikiina ina kafaynaaka almustahzi'iin aladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan. dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk. waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin. fasabbix tasbiixso
ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya alle ammaantiisa wa kun min asaajidiin inta sujuudaysa ilaahay fooda dhulka u dhigaysana ka mid noqo culammadu waxay yidhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay yidhahdaan huwa tiryaaq waa dawaa'un yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa weye markii xanuunka loo sheegay ee dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sidan nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun ama falacallaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaa'a macahu malak falacallaka baakhicu nafsaka calaa aathaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimi iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihiin cidhiidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay طmi'naanku galaa raaxatu lbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar uu ku dhaco haddii uu wax mashaakila la kulmo baadara ila asalaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadduu u degdegi jiray sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi waqabla guruubiha وmin alleyli fasabbixuu adbaara sujuud fii suurati qaaf fii suurati gaafir ilahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaqu wastakfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar fii suurati tuur ilahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbik fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu wamin alleyli fasabbixuu waidbaara الsujuud waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاين صور آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلا كل ما يدد كاسي إن يهين وحا cidhiidhi gelinaya waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaadda iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanin say mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiye la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana uu cunay ama iltiqaa buu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga ah markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ilan geed la cuskadaana tahy haddaad badweynta ku hafato marka hore aanad
nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyihin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayganuu soconayna waa ka subxaanak rabbow xuma ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn